السلام عليكم ورحمة الله. meeshan waxaan ka sii wadaynaa su'aalaha isweydiin jirna oo ku saabsanaa tarbiyada. maanta miiska waxaan noo saaran application-ka leeyahay TikTok ama barnaamijka leeyahay TikTok. waxaan isweydiinaynaa ama badan isweydiiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed gabdhaheena iyo wiilasheena markii barnaamijka TikTok galaan maxay ku koobnaadaan niiko iyo suuxid iyo hees la isku qabanayo meel kasta joogaan dal iyo banaanka. haddana si waxay noqotay sheeko ama waxay noqotay ficil oo caan ah yani si aad u foolxun badan oo dhaqankeena Soomaaliyeed ama xushmada annaga Soomaaliyeed lahaan jirnay ka hor imaanay. su'aashaas waa su'aal muhiim. waxaan dhihi karnaa asbaabta keenta in ilmaheena wax kala waayaan soo bandhigaan bas inay suuxaan ama hees uga qabtaan waa afar sabab. sababta koowaad barnaamijkan iyo barnaamijka la mid ah Instagram ama kuwa kale oo social media oo la dhihi karo kulligood ilmaheena waxay u buuxiyaan wax badan ama baahi badan oo dadkeena ama tarbiyadeena buuxisaa. maxaa ka wada sida ogna bin aadanka wuxuu ka weynaadaa intaas meel wuxuu ka weynaadaa jirka wuxuu ka weynaadaa ruuxa wuxuu ka weynaadaa caqliga wuxuu ka weynaadaa nafsada. وانا قانا بدن كانوا جرك سوق وين هذا قف عنتا للصية عبتان في عمل الصية روحة دين يا قرآن عقلية سكول يا معرفة وحنوصهرتي دنعة نفس الدا المهن سوق وين كران قف حكوا وين كأنا للصية جعل إنا الموجيو إنا محها مركز مجلس للشهر لكن كان الصومالي ده أو أضج بدن المهن وحاسب وكوايا marka muxuu bilaabaa inuu raadiyo social media uu galaya ama barnaamijka TikTok wuxuu fiirinayaa inuu helo jacayl ama waaba jirta adaaba jiraba la aqoonsado. wuxuu bilaabaa inuu soo dhigo waxa aragteen iyo waxa kulligeen aragnay. taas wuxuu ka helayaa like wuxuu ka helayaa comment waxa la adaa jiro adaa maxaa qof shidan baa tahay. هذا في إنه هيسي كل سوق قبنا يبضنا وهيس الجعل وهيس ليس أمر هيس نهاي أضاء قرف أضاء جرو أضاء قفه فعنا مركم كل لا كل حليه وكاسا أنا جواب جدا وحسم سنة جمهور وحسم سنة ضد فانس أما حسم ضد راعان أما ضد معها شعبيين وهذا مركز حب الله وإنه مركز له أنا جا محاكس يجوا كرا ضد محي جعلان كرا وصعنا إلينا wax badan oo dhaqankeena Soomaaliyeed ka hor imaanaya inay sameeyaan. mid labaad ilmaheena badana isticmaalaya social media ama Soomaalida qaarkood ma yaqaanaan applicationaadka maxaa loo sameeyay وفيرنا محل اسمه وجدينايا وجلايا ما أركن قف عندك صوب بندق لايف في عن سمي وحف عندك صوب بندق أو لايك أركي لكن وحي أركن قف براك سمي أما سمي هاس سوق قبتي أما قبر جل كده صوم وجسي أمويل وأركن لايك بضحلة تم بلو سمي مركاني أنا صام بكون غاقايا سبب تسدحات بالشدة الصومالية وحكبحي أما وحكم وكنا لجوايي وحي اللي جبق جري محل وحي اللي جبق جري أول وحي اللي جبق جري أذير وحي اللي جبق جري أبتي وحي اللي جبق جري وضال هذا وحي أركينا إنه أذير تحدث كده حتى إنه أفارها صوت الجبل وأذير وحلال هاي أذير أبيه ونولي هاي المها كوكبنا شامعها أنا إيدا أم حلا هي إن شاء الله ولا جسي جد بها هي إن شاء الله أول وحلا حلمين جل أبتي يا بوس كبحي أذير با كبحي من القف كان وحو كبقايا مالا لا دو كبقين يدين وحو كبقى بن آدم كبلشدة اللي جبك جريب وحنا قلت بلشدة واي أذير كيا لواي أبتي يا لواي إن أذير كيا لواي حتى تذكر عيك بقى جرين درسك معلمك وحاس روح لي يعني محايا قال ومركا وحنا قف وحو كل رنايا أما جيس وحنا قنا وح بدن إنه بربري أما وح بدن أنا جامي سنة سببت أفراد المهنة مو عضة أما تردشن كأنا وح من سنة المهنة سفر عن مو قارن حشاد إنا الألالية دقن إنا الألالية سمعت إنا الألالية إنا وحن لقى الله يحضر وحسيات المهنة مو قارسي أما هو قارن واجرن لكن سيد الربيع المهنة مو فاهمين قبل إني جرك صوب بدك أم ويل صوب بدك أيه سكوك قبصنا أما أيه سكوكها كعمل إسهستان تصبح تصوني سأنجا المهنة دين أخلاق ذا مككوري
bani aadamka dhinac kasta ku koro dhinac akhlaaqdana waa la koriyaa dhinac akhlaaqda ilmaheena maka korin marka waxa dhihi karnaa afartaas sabab inay ismuujiyaan wax ku helaan jacayl ku helaan muxuu ahaa in la amaano ama in aqoon wax lagu isticmaalo ama inay waayaan waxa muxuu ahaa wax dhaho jooji iyo istaag iyo waxaan waaceeb maxaan ku xallin karnaa waxaan ku xallin karnaa saddex shay baa ku xallin karnaa midda koowaad inaan horta baraarug weyn laga kaco aniga ma aqaani laakiin in waa aragteen bulshadana way aragtay inay gabdhaheena iyo wiilasheena bas jirkooda soo bandhigaan ama ayaga isku xayaan bas taasoo wax laga qorxoon yahay mujtamaceena Soomaalida musawirkooda oo dhaawaca marka hore loo kaco masaajidaha miidiyaha meel kasta la baraarujin weyn loo kaco macallinka iyo maskoolka iyo jaamacadda daba galaan cuniga muxuu ahaa soo bandhiga ama gabadha soo bandhigtay waalidkii ku caawiyaan waxaas dhan waxay hor istaagaysaa wax yar la yaray ama dadka inay baqaan mid labaad in la soo dejiyo shuruuc alaalinayso dhaqanka Soomaaliyeed iyo alaalinayso dareenkeena wax badan fiidiyood badan baa aragnay fiidiyoodkaas waxay u badan wax dhaqankeena saameeya dhaqankeena dhaawacay midda saddexaad inuu ilmaha waxay ka imaadeen guri Soomaaliyeed waxay ka hoos imaadeen waalid Soomaaliyeed waalidka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inuu dabagalo oo dhihina aniga ma aqaan social media sa loo isticmaalo aniga bageedkan bahashan ma aqaan meel sa loo dhaqaajiyo ilmaheena haddii arkaan waalid jiifo ayaan hore u sii soconayaan waalidka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay ogaadaan caqabadaha gabadha 20 sano jirta oo saas isku bandhigayso waxay ka imaatay guri waalid joogo wiilka asal isku soo bandhiga ama heesaas ku qabanaya wuxuu ka imaaday guri waalid joogo mid ugu dambeys waxa leeyahay ilmaheena Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin meel ay ku soo bandhigaan afkaartooda wax kale in la tuso wax kale in arkaan u baahan yihiin in nafsadooda la hormariyo oo loo sameeyo yool iyo gool oo loo fasireeyo maxay u nool yihiin adduunka maxay u joogaan waxaas dhan waxay siinaysaa qof dhisan binoo sameynaysa laakiin qof oo qoon muxuu u nool yahay ama garasho u lahayn muxuu u nool yahay wuxuu u dhaqaaqay wax kasta anaga na dhaawaco hadaa afkaar kale ama xulul kale heesi hoos igu soo qora aad baa u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaah